adiga ma awoodid laakiin waad niyeysatay inaad iibiso ee ma rabtid miya inaad iyada ku qorto maya waxaas wax weyn ma ahan waa iska caadi inaan iyada ku qoro maxaa yeelay ugu dambeyn waxaa iskale ilmahayna haddii aan shaqo fiican helana aniga ayaaba mas-uul ka ah ma maqlaysaa waxa uu rabaa in uu garabkaaga istaago runtii sidaan ma ahan sida dhabtaa ee wax lagu xalliyo waddooyin kale ayaa jira oo lagu xalliyo dadka oo dhan ayaa ogaaday arrimaha qaaska waa wax iska caadi ah arrimahaas wax macquulana ma ahan in la ogaado arrimaha ku xirnaaw janaalkeena ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid qisada hadda aan arki doonno waxay qusaysaa nin iyo xaaskiisa waxayna isqabeen muddo dhan 25 sano laakiin waxaa dhacday arrin xiriirkooda xumeeyey ugu dambeynna way isfureen ninka ayaa jeclaystay in uu ku laabto xaaskiisa carruurta u dhashay waan arki doonnaa iyada oo dhammaystiran qisada laakiin marka hore ila soo dhoweeya saaxiiba dacwa Ibrahim أهلا وسهلا إبراهيم أهلين أستاذ سودو إبراهيم waan dhawahay إيفريسو walaalkayga Ibraahimow hal mid ayaan rabaa in aan ka codsado waa inaad xanaaqaaga kontarooshaa inta aan aniga iyo adiga ka wada hadlayno ii ogolow in aan u sharxo qisadaada daawadayaasha sharafta leh walaalkeena Ibraahim waxa uu guursaday Marwa Ruuxiya waxayna isqabeen muddo 25 sano maasha Allah wuxuu Ilaahay siiyay 3 caruur Allah u dhaafee xiriirkooda waxa uu ahaa mid wanaagsan oo ku dhisan jacayl iyo isfahan balaaran yani nin iyo xaaskiisa oo isfahansan ayay ahaayeen xataa waxa ogaadeen diriska oo dhan xiriirka jacayl iyo isfahamka ka dhaxeeyay qoyskan waxayna ahaayeen qoys loogu dayday ixtiraamka iyo isfahamka ku dhisan noloshooda quruxda badan lama filaanka aan idin hayo waxay tahay yani muddo laga joogo 4 sano wuxuu maaday xiriirkaas sababtoo ah Marwa Ruuxiya waxay ka shakisay ninkeeda maxay ugu shakisay sababtoo ah waxay aragtay walaal Ibraahim oo in badan kula hadlaya telefoonka saaxiibtiisa Marwa Ruuxiya marka ay aragtay in badan in uu telefoonka uu kula hadlayay saaxiibtiisa way ka shakisay sababta ma aqaan anaga ma umaleynayno mana ka shakinayno laakiin Marwa Ruuxiya way ka shakisay wayna ka xanaaqday qolka ayay ugu gashay waxayna ku tiri Ibraahim gooy xiriirkan kala dhaxay saaxiibta ma aqaan magaceeda laakiin asaga ayaa noo sheegi doono Ibraahim wuxuu ku dhahay aniga waxaan ahay hormuudkaaga mana goonayo xiriirkan aniga ayaana og dadka aan la sameynayo xiriirka xaasaskan xaq uma lahan in ay ka hadlaan arrimaha nimankooda waxay ugu celisay xiriirkan ma gooynaysaa mise maya wuxuu ku yiri ma goonayo waxay ku dhahday haddii ay sidaas tahay mid ayaan rabaa waxayna ka dalbatay wax uusan samayn karin ilaa in uu furo mooyee صح dabcan asaga arintaas wuu ka xumaaday mana rabin in uu furo sidoo kale ma rabin in uu ka tago carruurtiisa maasha Allah waxa uu joogto 3 caruur wuu iska murugeysnaa ilaa markii ay Ruuxiya ku adkaysatay in uu furo ayna ka dalbatay furiin iyada oo go'aan ku gaartay in ay ka tagto noloshiisa amarkiina wuu dhacay wuu furay hadda furiinkaas waxaa laga joogaa 4 sano anigu waan fahansanahay 4 sano walaal Ibraahim in uu ku noolaa murugo shalaay iyo hilow uu u qabo xaaskiisa yani asaga wili aad ayuu u jecel yahay xaaskiisa waa micnaha runta ah ee nolosha waxaana u joogta 3 caruur mana arka carruurtiisa ilaa iyo anaga aan ugu furnay barnaamijkeena Al-Musaamax Kariim wuxuu jeclaaday in uu imaado wilina uu ka qayb qaato barnaamijkeena Al-Musaamax Kariim aana ugu wacna xaaskiisa wuxuu doortay barnaamijkan Al-Musaamax Kariim si aan anaga ula xiriirno Marwa Ruuxiya wuxuuna isku dayayaa in ay xaaskiisa u soo laabato ama uu u laabto asaga qisada soo saas maahan Ibraahim adiga carruurtaada 4 sano ma arkin miya maya waan arkaa laakiin in ay ila joogaan ayaan rabay in ay kula joogaan ayaad rabtaa haa maxaa yeelay waan jeclahay xaaskayga anigoo jecel ayaana furay okay adiga ma isku dayday inaad ku laabato dariiq aan anaga ahayn ma u martay haa aad ayaan iskugu dayay khaladka aan sameeyey in aan saxo ayaan rabay waxaana soo dhex gashay aayadeeda balse way ku guuldareysatay xalkeena anaga arrinteena waxay naqatay mid weyn oo weliba adag waxaana qasab naqatay in aan kala dheeraano oo kaliya wax hadalkayga ahna maysan rabin
kaliya waxa u muuqatay kala fogaanshaheena. Aniga aad ayaan ugu daalay, laakiin iyada maysan rabin. ehelka ayaa soo galay iyo asxaabtiina wayna diiday. haa kulli way ka diiday. runtii waxay kugu noqotay arrin lagu daalay. haa waa lagu daalay. noogu sheekay qisadaada. yee tahay saaxiibtaas? maxay ahayd arrinta saaxiibtaada? ugu horeyn aniga iyo iyada wax xiriir ah nagama dhexaynin. okay, laakiin marwa ruuxiya waxay kugu dhahday jar xiriirkaas. xiriir waan jaray, laakiin maba naga dhexaynin xiriir. ma rabin iyada inaad la hadashid. aniga ayaa nici karo ama aniga ayaa xiriirin karo, waa shakhsiyaddeeda. waa shakhsiyaddaada, laakiin iyada waxay ka fikiraysaa inay wax kaala dhexeeyaan. aniga qof mas-uul ayaan ahay, aniga ayaana og sida aan dadka ula dhaqmi lahaa. waxay rabaan ha ahaato in aan mid labaad guursado. aniga ayaa og sida aan ula dhaqmi lahaa ama aan u jari lahaa xiriirkaas. aniga ayaa leh fikirkaas iyo maskaxdaas aan ku maamuli lahaa. waana aqaanaa xiriir kasta waxa uu iiga mudan yahay. wax xiriir ahna ma dhex marin. waxaan ku dhaaranayaa inuusan wax xiriir ahna dhex marin. laakiin iyada kuma aaminin. ima aaminin iyada. sabab? waa arrin hore, iyadana kuma qancin. maxay yihiin wixii hore? wixii horeeyey ayaa ah wax weyn. wixii horeeyey saaxiibtaada miyaa? maya yacni saaxiibteeda iyo aniga qof walba waddadiisa ayuu maray. qof kastana xiriirkiisa waa mid u gaar ah. hadda mana isla xiriirno, khalaas ma wada xiriirno. laga soo bilaabo markaad furtay ilaa iyo hadda sideed ku nooleed? ma keligaa ayaa nooleed? haa keligayga ayaa noolaa. duruufaha reeraha adduunka oo dhan ayuu ka jiraa. in lees furo, in ilmaha la dayaco, laakiin xaqiiqatan aniga waxaan ahay farxadda ilmahayga. waan quustay, waan ka xumahay. waxaan sameeyey mashruuc si aan ilmahayga ugu farxad geliyo, laakiin mudaaharaad la sameeyey dartiisa waa la baabi'iyey. kulli waa la baabi'iyey. waan khasaaray malaayiin. waa taqaanaa qof quustay, yacni labadeennaba nolosheenna way u dhammaatay. laakiin sidaas ay tahay, aniga waan jeclahay weli. haa sax. anaga waxaan u dirnay risaalo. aniga ayaana barnaamijka ugu wacay iyada. mana oga qofka u wacay. waxayna ku fikiray inaan aniga ugu wacay barnaamijka. waxay u malaysaa iyada in ay ku guulaysanayso malyan. soo sidaas ma ahan? waa suuragal. ileen george qardaacay ayaa tahay adiga. ugu horeyn aan fiirino in fariinsidaha uu gaarsiiyey risaalada iyo in ay ogolaatay marwa ruuxiya. sida aan ugu sharafnay istuudiyoga, aan isla fiirino shaashadda. أهلا وسهلا مرة روحية. أهلين أستاذ جاري. كيف دي سمرة؟ soo dhaweey. waad mahadsantahay Ustaad. marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sidaad ii sharaftay. adiga ayaan kuu mahad celinayaa maadaama aad ii wacday oo aan kula kulmay. casuumaadda si degdeg ayaad ku ogolaatay adiga oo aadan ogeyn sababta. maxaad u malaynaysaa in lagugu wacay? sabab ma lahan dabcan adiga ayaan kuu imaaday oo iigu wacday si sharaf leh. yacni waxaan kuugu imaaday maasha allah waxaad tahay qof wanaagsan dadka oo dhan ay jecel yihiin inay la kulmaan. waad mahadsan tahay. iiga waran carruurtaada. alxamdulilah. ka waran xaaladaada. waa fiicanahay alxamdulilah. waxaan arkay dukaan. adiga miyaa iska leh? waxaan leeyahay maktabad. shaqadaada iiga waran iyo xaaladda noloshaada. alxamdulilah kulli waa okay. ii sheeg. maasha allah wax kasta way wanaagsan yihiin wanaag ayayna ahaan doonaan. iiga waran carruurtaada maxay qabtaan? jaamacad miyay dhigtaan? wiilkayga weyn waxaa lagu magacaabaa maxamed. wuxuu ku jiraa sanadkii ugu dambeeyey ee kollejka. kan dhexe magaciisa waa cabdilhaadi wuxuu bartaa xuquuqda. xuquuqda maasha allah. haa kan yarna dhaqankiisa ayaaba isoo jiitay magaciisa waa qaalid.
maasha allah, allaha ku dhaafo. Marwo, adiga waxaad isweydiinaysaa oo kaa guuxaya sababta lagugu wacay. aad iyo aad dabcan waxaan isweydiinayaa sababta la iigu wacay. waxaan rabaa inaan kuu sheego, aniga ma ihi qofka runta ah ee kugu wacay. aniga waxaan ahay qof idin dhexeeyo ama fariinside. qof ayaa kuu wacay, wuxuuna jecel yahay aragtidaada iyo hadalkaaga. xataa waxa uu iigu kaa dhiibay fariin. ma jeceshahay inaad ogaatid qofkaas? haa xaqiiqatan waan jeclaan lahaa inaan ogaado waqti xaadirkan qofka iigu wacay meeshaan. okay, waxaan kaa rabaa inaad shaashadaas fiiriso, aadna aqoonsato shakhsiga uu yahay. ma taqaanaa? dabcan waa kuma? waa carruurtayda aabbahood. magaciis? magaciisa waa ibraahiim. aniga waan ogahay ibraahim iyo adiga xidhiirka dheer ee idin dhex maray. xidhiirkaas oo ku dhisnaa jacayl, kalsooni iyo isfahan, kaas oo ugu dambayn baaba'ay. waan ognahay qisadiinna, laakiin ibraahim waxa uu iigu kaa dhiibay fariin. waxaan jeclahay in aan ku akhriyo. inta aadan maqlin hadalkiisa, aniga ayaa ku akhrinaya warqaddan. okay. fariintan waxaa lagu soo qoray far qurux badan. maasha allah. xabiibteeda ruuxiya. qurux soomahan. qurux waa. waxaa laga yaabaa markaan dadka hortooda kugu dhaho inay ila yaabaan, weliba malaayiintan hortooda, yacni malaayiin dad ayaa idin fiirsanayso. laakiin aniga dareenkayga ayaa sidaas ah mar walba. adiga waxaa tahay gaclisadayda, hooyada ilmahayga iyo saaxiibtayda. mana awoodo in aan la'aantaada noolaado. wax sahlan ma ahan inaan ilowna noloshii dheereed ee 25 sano. sideen ku ilowaa bilowga nolosheenna markaan ka daahnay dhalmada? sideense ku iloobi karaa wakhtiyadii aan jeclaa inaad adiga cuntada ii karisid, weliba adiga aanad cunaynin? waan ku baryayaa icafi. haddii aan aniga iyo adiga cid aan ahayn wax naga dhexeeyaan, xilligan waan guursan lahaa. asaga weli ma guursanin Marwo. laakiin aniga ma awoodo in aan la'aantaada noolaado. waxaana ku noolaa 4 sano murugo iyo shalaay. nolosheenna 25 sano ahayd, iyo nolosha carruurteenna si aan ugu guulaysano tarbiyeentooda, annaga oo wada jir ah aan bilaawno nolol cusub. aniga ma ka tegaya xalqadan. wuxuu ku dhahay ma ka tegaya xalqadan ilaa aad iga cafiso qalbigaaga oo nadiif ah, aadna ii oggolaato inaan isku laabanno. laakiin iskuma laabanayno ilaa aan kaa maqlaa hal kelimad oo ah waan ku cafiyey. walmusaamax kariim. aniga kama tegin asaga dabcan. sidoo kale asaga waa qofka keliya ee aan sida dhammaystiran u ixtiraamo inta aan noolahay oo dhan. balse waxaan nahay dad 2 meel ku kala nool, keliya waan kala fogaanay. laakiin dalaaqaa dhacday, soo kuma furin? haa waan kala tagnay. haa wuu i furay, laakiin macnaheeda ma ahan annaga yacni noloshiisa ma ka baxday mise maya? haa waan ka baxay, wuu i furay. 4 sano ayaa laga joogaa furiinka. okay, maxaa sababay furiinka? wallaahi sababta keentay furiinka xaqiiqatan waa siro qaas oo ka dhexaysa reerka. maadaama uu fariin kuu soo dhiibay, uu kugu sharfay, yacni ma habboono siraha qoyska in laga sheego meeshan oo kale. maya, anaga ma rabno siraha reerka inaan baarno. xataa gadaal haddii loo celin lahaa waqtiga oo lay dhihi lahaa dooro nin, asagaa dooran lahaa. maxaa yeele wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinka suurtagalka ah ee aan rabo. aniga gabyaa ma ihi aniga. maya shakhsiyaddiisa ma ahan mid xun, waa qof wanaagsan. furiinkana waa daawo mararka qaar. aniga iyo adiga xoogaa waan wada hadalnay. asagana waxa uu nala joogaa stuudiyoga. waxa uuna rabaa in uu kula hadlo oo wax uu kuu sheego. ma rabtaa in aad dhegaysato? dabcan waan dhegaysanayaa. master ibraahim, hadal. marwa ruuxiya way ku maqlaysaa. codkaagana kor u qaad. ugu horeyn aad baan ugu xumahay wixii nagu dhacay wakhtiga awgiis iyo hadalkii aan kugu dhaawacay aniga. waxaana kugu wacay inaan ku xaliyo, aan kula heshiiyo. caalamka oo dhan ayaa la iiga maqlayaa, mana ahan ehelkayga iyo ehelkaaga ama deriskeena iyo asxaabteenna, waa caalamka oo dhan. waxaan kaa raaligelinayaa hadalkii aan kugu dhaawacay oo dhan, iyo haddii aan kugu dhaawacay nolosha dhinacyadeeda kale. dadka oo dhan hortooda ayaan kugu raaligelinayaa. tan labaad,
aniga weligayga ma jeclaanin qof aan adiga ahayn, mana jeclaan doono hadda kadib. Adiga ayaa igu filan xabiibti. jacaylka la'aantiisa, xataa haddii ay dunida oo dhan taagan tahay, cid ku noolaanaysa ma jirto. Anigana waxaan jeclaa inaan wada joogno iyo inaan ilmaha isla korsano. laakiin adigana lama joogin, ma rabin midaas. haddii aan nolosha wada qaybsano, uma baahanni cid kale. waxa kaliya aan ka maarmi karin inta aan noolahay waa adiga iyo carruurteeda. dhammaan dadka hortooda ayaan waxaan kugu leeyahay, xanaaqa aad ii qabto oo dhan, malaayiintan dad hortooda igu cafi. iga raali noqo, aad ayaan ugu xumahay. mahadsanid walaalkayga Ibraahim. waad maqashay hadalkiisa. alxamdulilaah, aniga kama xanaaqsanin khalaas. kama xanaaqsanid? maya khalaas, wuu ogyahay inaan ka xanaaqsanin. okay yacni asiga kama xanaaqsanid, laakiin wuxuu rabaa intaas ka shakhsi badan. ahaan waa qof qaali ah, xaqiiqatan waa qof wanaagsan isaga, inta aan ka aqaano. okay, laakiin intaas ka badan ayuu kaa rabaa. wuxuu u yimid barnaamijkan almusaamax kariim inuu kaa dalbado oo aad dib u bilowdaan nolol cusub. dabcan haddii uuna dhex maray isfaham waa waqti hore ama waqtilxaadirkan, aniga mar hore ayaan cafiyey run ahaantii. ma fahmin ayaan filaa. dabcan wuxuu rabaa inaad isku laabatiin. haddii aad adiga dhehaysid kuma cafinaayo, khalaas. maya mar hore ayaan cafiyey. waxaasna wax tegay ayay ahaayeen. waxaan ahayn famil, nolol dheer ayaan soo qaadanay. mana ahan inaan cuqdad isku qaadno ama aan kala xanaaqno. su'aal, ma ku raacsan tahay inaad isku laabatiin ninkan? maya, runtii hadduu mawduuca yahay inaan ka xanaaqsanahay, wuu u dhammaaday mawduucaas khalaas. adiga ma ku raacsan tahay mise ma ku raacsanid? waana inuu noqdooyin lahaadaa, tusaale 1 2 3 kadibna aan falaqayno oo aan isku raacno. waa uu dhammaanaa mawduucaas khalaas. laakiin maanta hal meel leh haddii aan ku wareegsanno oo aan hadal leh wadno, wax maalaayacni ah, wax micnaa ma keenayso. okay, ma istaahishaa nolosha in la soo koobo oo la jaro? maya, ma istaahisho nolosha in la jaro. haye, waad maqashaa waxay ku leedahay marwa ruuxiya? walaalkayga Ibraahim, waad maqashay waxay ku dhahday? aniga garsoore ayaan ahay, laakiin weli iyada ma caddaysanin. yacni maxaan caddeeyaa? ma intaas ka badan? wuu fahmayaa asaga dabcan waxaan kala jeedo. okay, u oggolow asaga. aan siina hadalka. hadafkiisa waxa uu yahay inaad aqbasho inaad isku laabatiin, laakiin aan aragno haddii uu awoodo inuu ku qanacsado. soo dhowow Ibraahim, hadal. markaan isku dayay inaan qanciyo oo aan maslaxeeyo, waxay igu dhahday waqti xaadirkan waxaan u baahanahay maal. haddii ay dhici weysay, sanad gudihiisa aniga iyo adiga waan kala tegaynaa ama waad tifuraysaa. nafsaddeedana sidaas ayaa raaxo u ah. waxay igu naqatay wax adag inaan u sameeyo wax walba oo ay iga rabtay. qisadiina ma hanti baa? dabcan wax walba ma ahan hanti, laakiin waa waxa ugu muhiimsan. maxaad ka dalbanaysaa? asaga wuu og yahay waxa aan ka rabo, waana u sheegay. adiga waad og tahay waxa ay kaa dalbatay. hadal. waxay iiga dalbatay oo ay sharad iiga dhigtay inaan u iibiyo guri. iyada waxay rabtaa inaad u iibiso guri miya? haa, guri ayay rabtaa. guri miyaad rabtaa? haa, xaggeen ku noolaanahay haddii aanan guri ka dalbanin? xaggeen ku noolaanaa? guri waa inoo iibinaa, labadeena magaceena ayaana noogu qoraa. arrimaha qaaska ah ma fiicno dadka hortooda in lagu falaqeeyo. waxay ila tahay sidaas inaysan wanaagsanayn. waxaa fiican in qofka uu arrimihiisa qaas uu ka dhigto mar walbo. hadda ma awoodo inaan guri gado. marwa ruuxiya ma jeclaysanin in arrimahan laga hadlo. waqti xaadirkan aniga ma awoodo inaan guri iibiyo. adiga ma awoodid, laakiin waad niyeysatay inaad iibiso. ma rabtid miya inaad iyada ku qorto? maya, waxaas wax weyn ma ahan. waa iska caadi inaan iyada ku qoro, maxaa yeelay ugu dambeyn waxaa iskale ilmahayna. haddii aan shaqo fiican helana, aniga ayaaba mas-uul ka ah. ma maqlaysaa? waxa uu rabaa in uu garabkaaga istaago. runtii sidaan ma ahan sida dhabtaa ay wax lagu xalliyo. waddooyin kale ayaa jira oo lagu xalliyo. dadka oo dhan ayaa ogaaday arrimaha qaaska. waa wax iska caadi ah arrimahaas. wax macquulana ma ahan in la ogaado arrimaha familka. ma ahan arrimo waaweyn, waa wax guri walba uu ka jiro. dhibna ma lahan. ninkan hadafkiisa waxa uu yahay inaad iska cafiso.
okay aniga hore ayaan ugu sheegay waan cafiyey dhibna ma lahan waad isfurteen asagana carruurtiisa wuu ka fogaaday. sharaftaada inaad ku noolaato ayaa wanaagsan ha ahaato wax lagaa dalbaday oo hanti ah ama hadal wanaagsan nolosha way u baahan tahay lacag iyo wanaag intaba dabcan labadooda waa wax isku xiran laakiin nolosha hanti oo kaliya haddii lagu Okay. koobo wax faa'iido ah laakiin ma ninkan lahan noloshiisa wuu fududeeyey waxa uuna ku cabiray jacaylkiisa. aniga dabcan waan cafiyey xataa wallaahi haddii uu guursado naag kale waxba kama qabo cafis ayuuna iga yahay aniga ma rabo in aan ku kalifo mana isku day in aan martideeda kalifo maxaa yeelay waan ixtiraamayaa martidayda sidoo kale waan ixtiraamayaa ra'yigaaga fikirkaaga Mahadsanid. iyo shakhsiyaddaada laakiin anaga muhiimaddeena waxay tahay inaan dadka isku soo dhoweyno aan u laaban ibraahim oo aan dhegaysana hadalkiisa ugu dambeeya. ibraahim Haye. waad maqashay waxa ay ku dhahday iyo waxa ay rabto waad maqashay soomahan dhammaan hadalkeeda way fiicnaan lahayd inaad kelimateen ka dhahdo inta aan ogaanin dhammaadka qisada. aniga hal mid oo kaliya ayaan ogahay wax walba amarka alle inay ku dhacaan wixii dhacayna wax qoran ayay ahaayeen waxaana igu filan dhammaan dadka hortooda inaan ku qirto khaladkayga weliba caalamka oo dhan hortooda waxaan kugu leeyahay waan ku jeclahay carruurteedana u sheeg sababta labaad aan ugu laabanahay shaqadeeda inay tahay iyaga dartooda waan ogahay aniga inaan wax lacag ah haynin laakiin waxaan naqanayaa mid qoyskiisa ku filan oo farxad geliya saaad u naqataan kuwo faraxsan midda labaad aniga bini'aadam ayaan ahay oo dunida ugu noolaa sida meyd nool oo kale aniga laasim ballan ha iga qaado muhiimadda ma maqashay dabcan waan maqlay hadalkiisa weliba si wanaagsan ayaan u maqlay wakhtiga uu doonaha soo laabto ama beri ha soo laabto ama maanta ha soo laabto haddii uu soo laabanayo muhiimadda waxay tahay inuu igu dhaho waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaasaan kuu samaynayaa kadibna aan isku raacno anigii asiga dhib ma lahan ha iska soo laabto laakiin waa ku jeclaha oo keliya macquul ma ahan jeceyl keligiis waxaan sugaynaa waxay tahay xaqiiqada adiga xaggaaga adiga ayaana go'aanka iska leh waa maqashay waxa uu ku dhahay oo dhan ninkan jecel dartiisa ayuu inta u yimid adiga ma ku raacsan tahay inaad raacdo oo aad heshiisaan kadibna aad isla baxdaan oo aad dhahdaan khalaas waan heshiinay ilmihiina way idin arkaan hadda waxayna la joogaan stuudiyoga kadibna ay soo galaan oo aad naqataan hal go-aankaygu famil waxa uu yahay inaan isku laabanno maalin uun insha allah laakiin waan iska cafiyey inta uu nolosha igu dhaawacay tan labaad nolosha kuma soconaysa lacag oo keliya waan ogahay laakiin way u baahan tahay nolosha in lacag la geliyo aanan ka wada hadalno asaga ma jecla inaan ka wada hadalno arrintaas laakiin ibraahim dabeecad ahaan waa qof wanaagsan inta aan ka aqaano waayahay yacni qisadiina halkan ayaan ku soo koobaynaa kadib markaan dhegaysanay go'aankiisa iyo adiga go'aankaaga oo halkan aad u imaadeen welina laguma guulaysanin wakhtiyadiina qaata noloshana way sii soconaysaa carruurtiina way joogaan waxaana suuragal ah in ay iiga wanaagsan yihiin inay labadiina isku kiin celiyaan anaga dabcan waxaan jecelnahay inaan dadka isku xirno iyo bulsho familadeeda isjecel in ay soo baxaan waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh aad u imaaday stuudiyoga waad mahadsan tahay waana ku waxaan faraxsanahay inaan jeclaa kula inaad si kulmo. wada jir ah u baxdaan laakiin hadda keliga ayaad baxaysaa waxaan ku leeyahay maca asalaama mac salaama ustaad george ibraahim waan ka xumahay waan isku dayay aad ayaan iskugu dayay marwa ruuxiya yacni go'aankeeda waa mid adag adiga waad u iibin doontaa insha allah waxa ay kaa rabto haddii aad rabtid iyada waddo kasta ayaadna u maraysaa waa suuragal in ay carruurtiin idin xaliyaan waxaan kuu rajaynayaa dhammaan tawfiiqda sida aad u imaaday in aad u laabato waad mahadsan tahay yacni waan ku daalnay waxaan jeclayn in ay qisadan noogu dhammaato khayr in ay noogu dhammaato farxad iyo damaashaad laakiin nasiib daro ma dhicin insha allah waa inoo kulanti dambo iyo barnaamijkeenna almusaamax